آمنت بالله وملائكته bulshay meel kasta aad joogtaanba waxaan idin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikada duulimaadada ee tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taala bartamaha Birmingham oo idinku qadmeynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyadaad booqanaysa iyo dhulka barakaysan Makka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara dadka doonaya inay xajka iyo umrada tagaan waxay ugu tala galeen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jeddah kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star ka oo dhamaantoodba 5 star ay yihiin kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugada ama teendooyinka casriga ee VIP da walaalaha waxaan ogeysiinayaa iminka iyo wixii ka dambeeya inaan qayb ka nahay oo u taagannahay in aan kala qayb qaadano Furqaan Travel dadka ay hogaaminayso xajka umrada oo hogaaminaysa in aan irshaadino oo wixii diini ah aan ka saacidno ana u diyaarnahay inaan ka saxno akhtaada ay ku dhici karaan annaga oo la safrayna la joogna Furqaan Travel insha Allah meel kastoo aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiina iyo hawlihiinaba u dirsataan Furqaan Travel oo intii horay uga khidmaysay aad u jeclaysatay inta kalena ay jeclaysan doonaan anaa jeclaystay iyada jeclaystay isaga jeclaystay kulligooda jeclaystay adinkuna jeclaada Furqaan Travel yaa la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee Atol oo ah mid iyadoo hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ee ma buuxiyay la xiriira maamulaha sare Cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad samaar idin ku soo dhaweynaya wixii faahfaahina شاشة كداورة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين وبعد داودياشا الدنيا دا فيه دا نقد داونا يكسو دوادا برنامج كيني أبا نقل سعودين تي في كان عالمي كالسن تي في ساعدها نوكله وبرنامج كي برأ صحابي sida caado inoo ahayd bil walba markii ay dhamaato barnaamijka waxaan ku casuumi jirnay shirkadda caalamiga ee Furqaan Travel oo ogtihiin shirkadaas inay tahay shirkadii barnaamijkan baro saxaabi inuu hawada uu soo maro ilaahay ka sokow thuma ayada ahayd maxaan kaga hadalnaa marka alaaba waxaan shirkadda weydiinaa meelihii ay goobahii ay tagtay saad ogsoontihiin oo intiina badan baad ka daawateen TV-yada iyo waliba social media-ha gaar ahaan dadka Facebook iyo Twitter-ka waxyaalaha isku wada Snapchat-ka iyo waxaad arkayseen in aynu ka soo tabinaynay shirkadda Furqaan oo joogto dhulkii barakaysnaa meeshiisii saddexaad oo ahayd Qudus wal xaqiiqataasi waxay ahayd wax dad badan ay ku noqotay ma sha Allah farxad iyo reereen ku abuurtay waxay la fadhiyo gacantayda midig دايركتور كشركة عبدولي عيسى يوسف سوكله قاعدين بالحافة دي شيخنا شيخ حامود أو تقعنان أهنا علماء شركة فرقان هاتن وقانك أوهايو أو مركز أي تجين حجك أما أي تجين عمرضة ذاتك معرفتي كتوس يوحياله مركز أخطاء يكون على هايين إني كسحان أو يتبن تابيان أي تاجين وحسوا دويني مركوبات دايركتور كشركة فرقان ترافل عبدولي سولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شيخ أحمد أدبان كوماد علينا يا وهنكلو أماد علينا يا ولا لها تيفيغان عالمي كالسن oo mar walba isku taxaluujiyo umada inay u soo maaragtay gudbiyaan barnaamijyada ay ka faa'iideysan karaan ama faa'iido ay ka heli karaan adduunka aakhiraba barnaamijkan bar saxaabiyana si toos ah oo uga baxo TV-ga caalamiga ee Kalsan ayadoo oo TV-gu maaragtay ilaahay dartiis barnaamijkaas oo uga baxo si dadku ay uga faa'iideystaan waxaan kaloo salaamayaa sheekheena faadilka sheekh Xaamid Kalsan Allah barakeeyo sidaa daraadeed waxaan maaragtay sheekh caawi aan sheekh Axmed sida sheegtay aan ku dhownahay barnaamijkan wanaagsan bar saxaabi ilaahay waxaan ka rajaynaynaa walaalaha ku taxan oo ka faa'iideysto maaragtay adduunka in ilaahay subxaanahu wa ta'aala maaragtay muraadadooda ugu sahlo aakhirna fi miisaan xasanaadkooda uga dhigo waa ku dhawaashay Axmed جزاك الله خير الجزاء عبد الولي إلهي كبركيه
sidoo kale waxaan hadda haatan u wareegaynaa oo soo dhaweynaa ila soo dhaweysaan sheekheena sheekh xaamud cali ilaahay subxaana wataala inoo baraka sheekh xaamud soo dhawow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين الله تبارك وتعالى أيان مهد علينا ربنا كريم كا مجلس كا نو كرامي ونو سهلي ثم شيخنا الشيخ أحمد iyo sheekh cabdiweli baa sidoo kale iyagana waan insha allah soo dhaweynaya siday ii soo dhaweeyeen kadalika waxaan u mahad celinayaa maamulka telefishinka Karsan iyo dhammaan wariyaashiisa iyo ragga muxuu ahaa farsamo yaqaanadiisa dhammaantood iyagana waan uga mahad celinaynaa jalsada ayna siiyeen fursadda sheekh Axmed jazakallahu khayr aad u mahadsan tahay sheekh xaamud kulay inta badan dadku way garanayaan sheekh xaamud ilaahay subxaana wataala noo barakeeyo duruus fara badan wuxuu ku leeyahay oo aweedeen hadday noqon lahayd Somali Channel TV-yada kale sidoo kale YouTube-yadana duruus ayuu ku leeyahay sheekha qoranka xataa maanta waxay inta badan dumarku ay dhegta ku hayaan telefoonada marka qoral badan oo khayri ah ay sheekha duruus iyo maaragtay muxaadaraad ku leeyahay jazakallahu khayr jazaa inta ka sokow waxaan maanta goosgoosan doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala oo noo raaci doontaan inta aan TV-ga live ka nahay inaan idin geyno bandhulkii barakaysnaa oo say idin geynana inaan bal idin kaga sheekeyno goobihii hadda ugu dambeeyay waxaan ka bilaabi doonaa Madiina iyo Makka iyo xajkii ugu dambeeyay waxyaalihii u qabsoomay shirkadda Furqan Travel waxaan ku bilaabi doonaa marka hore Cabdulweli kadibna waxaan soo laaban doonaa sheekana Sheekh Xaamud biidnaahi tabaaraka wa tacaala Cabdulweli sanadkan hadda waa gabagabo 2019 ka socotay xajka bal waxyaalihii shirkadda Furqan u qabsoomay iyo meelihii ay dejisay macaamiisheeda sharafta leh hal iyo laba hadda noo tataabatay sheekh Axmed Allah karameeyo alxamdulillah bil caalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaa sheegtay khayrka inuu Allah subxaanahu wa ta'ala naga aqbalo ikhlaasna naga dhigo amiin Allah xajkii ugu dambeeyay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dhigo xaj mabruur sa'i mashkuur wa dhanban maghfuur insha Allah sheekayga hadii aan maaragtay si briefly aan arrinkaas aan maaragtay u dul maro kulli xajkii de gurubyadii baxay way kala duunaayeen qaybo maaragtay waxay baxeen maaragtay horaantii dulqicda qaybihii ugu dambeeyeen waxay baxeen maaragtay afartii dulxija alxamdulillah wuxuu kusoo dhamaaday si sharaf iyo khayr aad iyo aad u badan ayuu kusoo dhamaaday sidaa daraadeed dadkii ayagoo nabada ilaahay subxaana wa tacaala baa xajkii geynay iyagoo nabadana way soo laabteen waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen kulley waxaan degnay sida maaragtay hoteeladii Madiina qayb dadkii waxay degeen Zamzam Bulman oo dadku ay wada yaqaanaan qaybna waxay degeen Mozambique oo ay dadku yaqaanaan oo 5 star oo xaramka ka soo horjeedo albaabka 15aad qaybna waxay degeen hotelka la dhaho Shaza oo Sheekh Xaamid oo hogaaminayay alxamdulillah makana kulley waxaa la kala degay saacada dhexdeeda qayb waxay degtay maaragtay ii sheeg Marriott qaybo kale waxay degeen Sheraton qayb waxay degeen Ilaaf Kinda alxamdulillah kulley xujaydii ayagoo habiyay soo noqdeen qof walbana marka uu soo noqdo sidii anaga caadada noo ahayd dadku waxaan mar walba ka codsanaa markii xajka ay soo dhameeyaan in ay dadka walaalaha la wadaagaan dareenkoodii iyo waxay soo arkeen kulley waxay ku jirtaa Google-ka صح qof walba Google-ka ayuu wuxuu ku dhigay wixii xajkii la soo dhaafay oo la soo kulmay iyo service-ka uu helay taasna waxaan rajaynayaa ummadda caawa naga daawanayso TV-ga inay ka heli karaan YouTube-ka iyo Google-ka dadkii xajkii ugu dambeeyay صح taasoo ah itus itaabsi ما شاء الله جزاك الله خير مثل عبدول انت كجودبين ما دام ku jirno sanadkan xajkii tagay hada xaj baan ugu soo fool leh saan ogsoonahay Soomaaliya sanadkan aan haatan ku jirno gabagabada naga ah systemkii loo xajin jiray waxa laga bedelay waxaan ogaa shirkadda Furqan inay kamid tahay dadkii ugu dhadhawaa ee laga rajo qabay in ay dadka ka soo kaxayso xajka marka bal maxaa isbedelay maxaa hadda u qorshaysan Furqan sanadka soo socda xajka biidinlah إن شاء الله شيخ أحمد الله كبركيه أنا مرة بوحان جعلنا هاي dadka maaragtay walaalaha iyaga Soomaaliya joogo in aan uga faa'iideyno khibradda aan u leenahay xajka iyo maaragtay shaqaalaheena Furqan Travel 12 sano ama 12 sano la soo dhaafay ummaddu sideedaba Soomaalidu waxay dhahdaa magaalo waa madal inta joogtana waa marqaati marka waxaan aad iyo aad
maaragtay mar walba xujayda meel walba ay joogto waxaan mar walba ilaahay uga baryaa in ay xaaji walba oo xajkiisa si wanaagsan oo fudud ugu dhameeyo waa ku jirnaa arrinkaas insha Allah biidni Illaahi tacaala inaan walaalaha iyaga Soomaaliya uga faa'iideyno khibradda aan xajka u leenahay in ay nagala qayb qaataan weliba dad badan ba waxay naga codsadeen oo Yurub joogo iyo Ingiriiska in waalidiintood iyo familkood oo Soomaali ku nool sida ay isugu keeni lahayn marka insha Allah waxaan rajaynaynaa xajkan soo socdo 2020 haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo suurtageliyo inaan xujay badan oo hadda nala socoto waalidiintood walaalahood adeeradood eedooyinkood aanu isugu keenno Maka iyo Madiina ayagoo laga yaabo 20 sano ama in ka badan aan is arag waxaanu rajaynaynaa inaan maaragtay servicekaas aan hirgelino waxaa ka horeysa cumro waxaan rajaynaynaa cumrada Ramadaanka inaan insha Allah biidni Illaahi tacaala ka bilaabi doono meelo badan oo Soomaaliya ku jirto insha Allah biidni Illaahi tacaala ما شاء الله صح الله كبركيه هدان أصول لابطو شيخنا شيخ حامد حفظه الله ورعاه إلهي سبحانه وتعالى شيخ الله كبركيه وحان أكسونا هاي إن هاتن أي تهاي وقتي فصحيح لو بحجري بل محا قرشاء قيدة بحيو إيوه بل ملاها للدقيو هذا الحال يلا بك شيء كرت بسم الله شيخ أحمد الله كبركيه سيدا وهنتي تشيقوا وكمل ياهي علماء فرقان runtii hormuudka Sheekh Axmed oo isaguna aasaaska xamlaadka iyo wixii ku tacalluq oo dhan culimada hogaamisa ayuu ka mid yahay wuuna ka waraya xaqiiqatan dabcan sida noo qorshaysan oo furqaan taraafid u qorshaysan biidni Illaahi tabaaraka wa tacaala xilliga cudlada ama Christmaska dadku ay u yaqaanaan ama xilliyada hadda la geli doono waxa ay ugu talagashay runtii in dadka la geeyo oo ay cumro gutaan oo xilliga ka faa'iideystaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala taacadiisa kaga faa'iideystaan وبالتالي تقريبا 3 جروب ayay ugu talagashay oo jadwalkoodu kala duwan yahay laga bilaabo bisha 18 bisha December group ayaa bixi doona oo cumrad tagi doona Madiina ayay degi doonaan waxaan hogaami doona Sheekh Axmed Al-Ahtuur oo inala fadhiyo iminka in Ilaahi tabaaraka wa tacaala insha Allah group kale ayaa ku xiga oo iyaguna bixi doona 22 bisha December oo insha Allah iyaguna culamo kale ay hogaaminayso anigu aan kamid ahay groupka saddexaadna 23 bisha December ayay bixi doonaan in Ilaahi tabaaraka wa tacaala saddexda group waxa ay insha Allah muddo ilaa 14 iyo in ku dhow ay ku qaadan doonaan in ay tagaan cumro oo ay Madiina iyo Makaba ay insha Allah ku soo gutaan waajibaadka diiniga ah ziyaartaan meelaha sharciga ama sunnada in la ziyaarto ku sugan ama taariikhda islaamka ummadda muslimiinta soo martay looga faa'iideeyo kolka saddexdaas qayboodba ama saddexda majmuucaba Sheekh Axmedow way tagi doonaan biidni Illaahi tabaaraka wa tacaala جزيت خيرا إلهي سبحانه وتعالى كبركيه شيخ حامد وصاو نو شيغ ريال isla Sheekh Xamad ku soo noqonayaa Sheekh Xamad dadku inta badan waxa alxamdulillah way hada wala fahmay dadku intooda badan waxay xaj ama umra ay isdhahan waxaad aad doontaa markaad weynaatido markaad nacaasa laga aaminsan bal qofka umrada fadliga leedahay kale bal hal iyo laba nooga taab kadibna xajka soo dhici doona biidna tabaaraka wa tacaala hadana noo darkisna ayadana ka si fiican oo siracsaneys cumradu asalahan waa ziyaaro weeye oo insha Allah xagga luqada xagga sharciga waa in qofku uu tawaafka iyo ama ziyaaro ku sameeya beedka Rabbi tabaaraka wa tacaala uu soo ziyaarto oo shuruudii iyo ahkaamtii iyo arkaantii cumradu ay lahayd ku guto dabcan nabigana sallallahu wa sallam alayhi ayaa ummadda u tilmaamay wanaaga ay leedahay cumradu oo runtii qiimaha ay leedahay nabigeena ayaa inoo tilmaamay sallallahu wa sallam alayhi waxa uu yiri al-umratu ila al-umra كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة حج عمره إلى عمره كلا لقاره وحا الله كبابية دنوبتا أولا حيث حج كاللغو برغة سميي oo ayaal cilmigu markay biriga sheegayaan
xajka mabruurka ay saddex arrin ay ku qaydaan in ilaahay dartii loola jeedo khaalis camalka alla looga dhigo in nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi siduu u gutay loo guto iyo xoolo xalaal ah in lagu cumraysto ama lagu xajiyo abaal kale male buu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam ilaa janno ma ahan kadalika nabigeena waxaa ka sugan xadiis saxiixa uu yihi man xaja qofkii xajiya oo falam yarfuth walam yasfuq ama qofkii xajiya isaga oo rafad aan la imaanin faasiqnimana aan la imaanin ayuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam isagana haddii ilaahay ku yahay rajaca ka yawmin waladathu ummu oo kama qaala calayhi salaam wuxuu noqonayaa sida maalintii hooyadii ay yacni waxa weeye ay dhashay oo kale isagoo dembigii laga baabi'iyey xaqiiqatan walaalayaal waa waxa inagu xambaaraya in aynu waqtigeena uga faa'iidaysano cumrada nabigeena xadiis saxiix ah oo cinda nisaa-i kusoo arooray min xadiis cabdillahi bn cabaas radia allahu canhuma waxa uu ku yidhi taabicuu bayna alxaji waalcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra wاldunuuba kama yanfi alkiiru khabatha alxadiid ama khabatha alxadiid nacam yacnaha xiriiriya xajka iyo cumrada labadooduba waxa ay baabi'iyaan dembiga iyo faqriga ayuu salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka xiriiriya oo badiya way taabicu bayna alxaji waalcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra wاldunuuba kadalika nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu marka tusaale uga dhigay sida marta birka la geliyo iyadoo oo sideeda qashinkeeda dhagxaanteeda wadata dabka ay u kala saarto oo saafi uga dhigto kolka waad ogtihiin oo xajku waa min arkaan alxajbu min arkaan islaamku ka mid yahayo waa rugniga shanaad wey marka inta aan adiga lagu xajin sida hadda culamadu ahayd adigu xaji marka waxaa laga yaaba maanta xoolaad haysataa xoolahaas inay kaa tagaan caafimaad iyo waqti baad haysataa berri inaad haysan culays kale inuu kugu yimaado marka intaan adiga lagu xajin xaji waana dacwo iyo diinta oo laysugu yeerayo waxyaalaha ambiyada alla loo soo diray oo dadka culimmada la rabo iyagaa warathatu ambiyaa in ummadda u sheegaan waxaa ka mid ah xajka iyo cumrada sida qeybaha kale ee diintooda loogu sheegayo ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى هكو بركة شيخ حامد سقروح بدن بعض وقابع نكتي إن شاء الله تبارك وتعالى عندي أباها إن البرنامج كان على قيب قاته لمبركة هوس كقرن هتوهان لها واتساب إيبو أما ستوصة نص وعي كلام بإذن الله تبارك وتعالى سكسباتي وحالات أسورية نعاسيو دايركتور شركة عبد الولي إن حقيقة عبد الولي وخبير إن مدة أنا هتك جيني دولك بركيسان حرامينك مدينة مكة عبد الولي وحياله وهو مارتي سوجي الشغل بدنا إن هذا قبتين لأن قفك مركه أبوه الرئيسه أولي بلقيه مركه حرمك أولي مدينة لقبل أو مكة لقبل لابو محا مركه ولا لقى صحة أو لوش شيء مركه بلدات هري الله بنا ما كرت شيخ أحمد الله كبركيه أنا سيدا دبا عمرضا dad badan baa waxaa laga yaabaa in ay maaragtay marka horeba u galaan qaab business iyadoo business ay tahay haddana waxaa loo baahan yahay sida adinkaaba shuyuukhdii ila fadhiyo qof walba oo islaama rasuulka sal slam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati annaga waxaa mas-uul aan ka nahay dadka aan cumrada kaxaynayno iyo xajka waxyaabaha naloo ka baahan yahayna waxaa ka mid ah oo qof walba oo xaj iyo cumro dadka u kaxaynayo looga baahan yahay waajibka uu saaran waxaa weeye inuusan dadka lacagta kaliya ka qaadin hoteelana geynin ay intay iska seexdaan ay moodaan inay Dubai iyo meelo holiday ay joogaan muhiimadda ay u tagayaan waa qasdi safarkana sidiisa waa safar ku saabsan ilaahay beedkiisa baa tagaysaa annagu waxaan isku daynaa marka ugu horeyso in aan dadka aanu u qaybino kutub yar yara oo aanu qornay kutubtaas oo ku qoran ma aragtay afka ingiriisiga ah kuwa Soomaali ku qoran kuwa Carabi ku qoran oo qofka uu horta marka hore fahmo maxaa u socotaa waxa lagaaga baahan yahay cumradii oo kooban shuruudii arkaantii inuu yaqaan waxyaabaha kale oo isku taxluujina waxaa ka mid ah in xamlo walba uu la socdo sheekhaas oo waxa uu la socdaa kaliya ay tahay dadka inuu ka soxo cibaadadka إلا dadkii waa la kaxaynaya labadii beyd baa la geenaya hatta waxyaabaha shirkadda Furqaan ay sameeyso waxa kamid ah in ardayda
ما أركتي أنه إيشك أنه حتى مساجد كجينه صح أنه مكة مدينة جوجنو أن قفل بدنا أنه قرآن كإلا حقيقة صح صح قرآن كي مارت حتى الغصحه لغة السبعية لك حياة اليردي الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكان قبريس إلهي سبحانه وتعالى وقوة الدنيا إلى جوجين ربي أسع قرآن كوع كله إنك ميت وإنهم ميتون. رب النبي بحي صلى الله عليه وسلم. ها مركا وهذا هالكاسة إيدين دميسو بل يا رب بدن أدبي يسوسو بدرين. صح. دوا وحيابا أنا يقول يا بك بدن مركا عمرها تجنو حكم إذا. دتكم مركا حرم كتجار. ما أنت وقول رسقفك مركو كعبة أركو. dad badan baa waxay igu dhaheen warigay Allahi ma ooyin laakiin markaan xaramkii kacbadii aan arkay ilmaan istaajin waay qalbigii baa qalbigii baa hadda inuu naqal laga yaabo subhanallah marka anigu dadku waxaan ku aanin lahaa mideeda kale waxa markaad aragtid 2-3-4 milyan oo u yimid qof walba Ilaahay inuu dambi dhaaf ka helo arrinka laftigeeda qofka xataa shucuurtiisa wax badan bay ka bedelaysaa marka insha Allah bi'in Allah ta'ala kulli arrimaha ugu muhiimsan waxa waaye dadku waxay u socdaan cibaada dadkana waxaan kula talin lahaa anigu maanta TV-gan caalamiga kalsan ka faa'iideysanayo dad badan baa markay umrada iyo xajka aadaan waxay ka fakiraan shopping sax iyo adduunyo 12 bilood baa adduunyo kugu filan sax bishaas waxaan qof walba kugula talin lahaa inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad la kali noqotid sida hooyooyin badan oo na raaco oo xajji umra noo raaco oo aan ka harin sanad walba hooyooyinkaas Ilaahay wuxuu marqaati Sheekh Axmed oo nogay ani adigaba in intay subaxii salaad subax galaan masaajidka xataa la isweydiiyay mararka qaarkood dadkan ma nool yihiin mise way dhinteen xarabkay fadhiyaan saddexdii maalin quraanka mar bay dhameeyaan marka aad baan arintaas nooga faa'iideysan lahaa dadka inaysan wax badan adduunyada ku mashquulin laguma diidana waxyaabaha daruuriga ah inaad soo qabsatid laakiin inuu noqdo focuska qofka cibaado ila Ilaahay beedkiisa baa tagtay halkii salaad oo xaramka aan ku tukataana waa 100 kun oo salaad hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naga aqbalo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu macaasha khayrka badan naga aqbalo aamin ya rab Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku barakeeyo si fiican ayuu noogu qaaba dhigay Abdul Wali هذا مثلا تعليق ير أو قدر صدق قلنا ريال قفك مركو آذا يقول إلهي تبارك وتعالى هرتقوا هرين وحكوا ماذا عزومات إلهي سبحانه وتعالى حق سكيله بقلال نقل عق بدن بقلال ما أعرفنا جرات سريس ولا جياب بقلال نقع علم بدن بقلال أدوية يمنعوا بنجاه الرئيسه فلقيا إلهي تبارك وتعالى إنه سهلين إلى ودنا ما أعرفه إيمران إلهي من أوبرينا أودينا أنا كنا حنا الحمد لله ثم يكن وحال إلهي سبحانه وتعالى أقدر إلى إماضان مركب ماشي على الطبق وصير ولالك عبدون وكذا واجب بدن بكفى إيست وقت بود هدي هذا عدد داون ستة كنا داون عيو أي مسكح هذا إيمان كا مرة كجرته إلى ماشتك إلهي إنك جريو فرصة أوجه الرئيس الجدول كا وحكبدل هذا سوق عجرتي سيحان جرتي شقاء جرتي تاني وأكون كاجي آخره وماشي حق شان لهيد وحاينه كو أركي dad aan ka soo saari weyn xaramka wasoo Abdul Shaw wallahi waliba ma dumar bay u badnaayeen oo ba meesha biyaha Zamzamka iyo timir cunto baa la soo saaro ma baxayo marka qofku wuxuu noqonayaa waxa qaaysa shawq iyo raqba ku dhacayo oo maxay yeelay iimaankiisa baa ziyaadayo iimaanku walaalayaal waa sida telefoonka jaajarka inoogu jiro telefoonka aan wadano jaajar baan gashanaa waxaan ku hadli karaynaa inta uu fuul yahay فلأجل هذا قفك إيمانك أنت أفول كيهاي أبوحه بوما عبادة كيف يسكرها مركب حين كلت الله ولا ريال أنا كون نجاهم بيزنس يحيسيس نظام ماشي أما صومالي كصباح أما مرة كصباح أما ماشي إلهي كو قدره ماشي أجو كصباح دول كاس إلى إبادة كجنا فايسد شيء حمد بل كور الدرك قفك مركب ماشي تكون عايش شيخ أنا وش عبد الوش أدونا بالمحط كبلين أولا شيخ أحمد وهرت قفك ساشركتي وماشي عزومات بكترها صح وقفك هالكاتيجي وقف إلهي وفده إلهي سبحانه وتعالى أيوم مرتؤيه صح مرتين ماذا أصنع الله تبارك وتعالى قادين ما يوقف مرتين الله تبارك وتعالى وقيم سبحان الله ولذلك حديث ابن عمر ولنا يقصر في سنن ابن ماجه نعم أي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الغاسي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله سبحان الله دعاهم فأجابوه الله أكبر وسألوه فأعطاهم سبحان الله قفك إلهي جدك سكوتش هذا يقفك حاجة يقفك معتمرك إلهي وفد أيه تبارك وتعالى الله أيا أيري كل كاسي الله
alla ayay wax weydiisteen ilaahayna waa siiyey subxaan allah kolka maqsuudkii culimmadana intaasuu ahaa nabiga xadiiskiisa ayuuna ku kobay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wax walba oo meesha aad gelisida oo qarashana labalaabkeed baa alla ku siinaya ma daliilu calaa dalika xadiis ibni cabaas xadiiska buraydaan leeyahay cinda axmed kusoo arooray nabigu wuxuu yihi annafaqatu fi lxaj kanafaqati fi sabiili illah b700 dacf nafaqaadka la geliyo xajka kadalika cumrada la geliyo waa la laalaabaa sida qofka mujaahidka ajarkiisa loo laalaabo yana 700 oo laalaabo kolka waxaa intaa dheer oo idinku sii daraya yacnaha tawaafka aad samaynaysid ee xajar aswadka aad taabanaysid yowma alqiyaama markhaati ku noqonaya nabigeena wuxuu yihi wallah isaga oo ummadda u sheegaya waa xadiis kusoo arooray nisaa-i xadiiska saxaabi jaliil ah ayaa wariyey oo cabdillahi bni cabaas radia allahu canhu waxa uu nabiganu yihi wallahi layabcahanahu allahu yowma alqiyaama lahu caynaani yubsiru bihima walisaanun yantiqu bihi yashhadu calaa kulli man istalamahu bixaq allah ku dhaartay ee xajar aswadka waa lasoo saaraya buu nabigu yihi sala allahu alay slm maalinta yowma alqiyaama isaga oo laba indhood leh oo wax ku arko carab leh uu ku hadlo wuxuuna markhaati u noqonaya qof kasta oo soo taabtay oo soo dawaafay marka wanaagga iyo khayrka iyo cibaadaadka ayaa allah tabaaraka wa tacaala kugu siinayaa ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan ka baryaynaa muctaminiinta iyo xujaata allah inuu ka aqbalo iyo mu'miniinta niyeysanba ما شاء الله تبارك الله إلهك كحوديو شيخ موسيقى يا قيمة بدن بعض لو قابع دكتي وليبا ميل هذا حالة يابا مساعد كست ومجانا كويال أمريكا كويالو إلا تكون تكون كرتي لكن ميل كست الجمود واف إلا بقعة ثوارقة أول بيت وضع للناس للذي بكت وارق ما شاء سبحان الله مركب قفكم روحن كلوتا لله أنتم ما شاء جوجو إنه ضوافك عبد ولي إلهكم بركيه أن كدقاقنا حرام حاجة أيو مسجد الأقصى أو دقاقنا إلهي أنا هذا يودد بدنا وكل جعلنا وحنجعل نقول يعني عندنا تجد ماشي إلهي ونو قدره ونحي الساقل بل محين ده هذا قبتين محاد شعور تاذو حكم بدني محاد ومدى لو ذاك الهيد ولو عن سير الله في أسود تبنيني بل ما أنتنا تيهور محاك ودار الهيد شيخ أحمد الله كبرك يا علي شيخ حامد بقى شيخ أحمد هو وقتها مالنتي تجني بيت المقدس صح أنا أديك وحنو إن شاء الله بإذن الله تعالى كنا قاعدين مقالة برمنغهام 6 مالين سنينة ويبش أي تاي أفري 8 أكتوبر ومالين اللي له وكرن شيخ أحمد أنا أديك ومركان ماشي تجني إلهي سبحانه وتعالى ضد بدن باسكو ديي إن يتجان أنا إلهي أقرن لكن الله سبحانه وتعالى أي أنه قري maalintii aan dhex istaagay wixii ugu horeeyay aan soo xasuustay waxay ahayd xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ku dhahayay la tashuddu ar-rihal illa ala thalath masjid marka ilaahay horta waxaan mahad uga celiyay maalintaas saddexdii masjid rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu sheegay labana hore aan u tagay intii aan xarameynka tagayna ilaahay waxaan ka baryayay inuu salaad igu qoro بيت المقدس الله أكبر مسجد الأقصى أنا كنت أتكلم الله أكبر وأنا أكتي شيخ حامد إيو شيخ أحمد رمضان والبا تضبي إلى بعدين كرمضان نعم شيخ سوزيس الدعاء سواها كمذا إله بيت المقدس صلاة نغخر صلاة واحد ولي هل صلاة سبحان الله مرك إلهي بقى نقوم هاد علينا إن الرنكاس نفذ ذي أنك ما أهن وحى أنكو كان سن حرفة دينا حالة دينا لكن وحى أهيد بحوله وبقوته هذا من فضل ربي waxyaabihii ugu la yaabka badnaa dareemkayga aad shucuurteyda u bedelay waxaa ka mid ahayd shay walaalihii masaajidka aan ugu tagnay oo na yiri marka aad noo imaadaan aad baan u farxnaa aad iyo aad baan u farxnaa markana la soo booqdo oo masaajidka ummadda ay noo imaado hadda haddaydan imaan masaajidkaana ogaada dee waa saa uu baabi'i waxaan kaloo sheekh axmed aad ula yaabnay ninkii aan aniga adiga u tagnay odagii dukaanka haystay oo dukaanka dharka markaan fiiriyay yaallo iyo wax kastoo yaallo hal shay oo aad ka gadato xataa kuma jiro waa alaab iska wada duuga waxaan gadanaa weyn waana kasoo gadanay xargihii kabaha lagu xirto waxaan ku iri marka maxaa meeshaan adiga ku fariisiyay waxba ma biyaalaan wuxuu yidhi masaajid baa iga soo horjeedo masaajidkaas ayaan ku ilaaliyaa meeshaan waxaan ka baqayaa masaajidkan haddaan meeshaan ka tago
in la xirto ama oo qolyo kale ay isticmaalaan weliba wuxuu noo sheegay ninka wuxuu igu yiri dariskayga ah oo halkan igu dhegan waa nimanka odayaasha ah oo aan ishayno waxay ii offer gareeyeen 3 milyan inaan dukaankan yarka 3 milyan oo dollar baa lii gaaray waxaan dukaankan uga tagi waayay diintayda iyo dhaqankayga inuusan bedelmin subhanallah marka war arkaas yaxmed shucuurtaas waa shucuurtii igu dan waad ogtahay Sheekh Axmedow inaan dul istaagnay nabiyullaahi ibraahim xaafadiisa inaan tagnay khaliilullaahi ibraahim xaafadiisa inaan booqanay wiil lagu magacdo xaafada khaliil waxa nabi ibraahim khaliilullaahi raxmaan baa loogu magacdaray allahu akbar waad ogeed inaan dul istaagnay sax qabrigii nabiyullaahi ibraahim waa saas nabiyullaahi isxaaq nacam umuna saara saxiix nimankii joogay waad ogeed inaan dul istaagnay masaajidkii 1994 maalin ramadaana salaadii subax rag ayuu ku tukanay lagu diray soo xagarta ma taariikhdaas oo dhan waa dul istaagnay marka aniga waxaaba ii kordhay markaan meesha tagay cibar iyo qisas waxaan aayadaha qaybtood markaan aan dul istaagay macnaha fakaannama quraanka inuu hadda soo degayo subhanallah marka ilaahay baan uga mahad celinaynaa ummadana waxaan anigu ku baraarujin lahaa qof walba qasdi buu iyo niyad buu ku tagayaa inama al-a'maalu bin-niyaat qof walba niyadaada haday tahay ina masaajidka salaad ku soo tukateen waxyaabihii yaabka lahaa masaajidka oo ka dhaxgalay cid allaale cid si tooska ah nagala socoto TV-gan caalamiga ee Kalsan TV ee doonaysa inay barnaamijkan nagala qayb qaato ee kaga hadlayno umrada iyo ma aragtay waliba hadda aan dub taagannahay Baytul Maqdis haddaad su'aal ama aad arrintaas daranaysid si toos ah lambarkan meesha ku qoran eber 4474 eber 92 ayaad maaragtay nagala soo xiriir kartaa hay ku soco waxaabihii yaabka lahaa markaan aragnay markaanu tagnay madxafkii ama museumkii taariikhdii taalay ilaa iyo aad ogeyd memberkii Salaaxudiin Ayuubi oo keenay oo xataa la gubay ninkii odaga ahaa adiga maalintii ku kaxeeyay Sheekh Axmedow markuu la galiyay masaajidka underground oo ku yiri tiirarkan qaybtood annagu aan la yaabnay sida loo dhisay daadaaba og jawaabtii uu ku siiyay markaa weydiisay war tiirarkan yaa dhisay subhanallah hadda qofkii markaa halka tago ilaa anigu aamin waayo wuxuu yiri bilaadan ma dhisin jiniida la shaqeynayay nabi ilaahi Suleymaan baa dhisay wax nooc kale u dhisnaayeen marka aan shucuurtaas shucuur waxay ahayd aad iyo aad la yaab u leh hadeerna maalin walba waxaanu ma aragtay aanu ka jawaabaynaa telefoonno intaasoo boqolaal qof baan soo wacayo oo dhahayo goorma la aadaya Baytul Maqdis waayo goorma la aadaya insha Allah tripka ku xigo waa bishan soo socoto insha Allah sanadka cusub 2020 January ayaanu tagaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa 20 January inaan tagno soo noqono 25 January waa only 5 days shan maalin qof walba inuu ka faa'iideysto si uu soo masaajidkiina ugu soo tukado taariikhdiina uu dul istaago ambiyadii oo waxa qofka loo diyaarinayaa tigidkii iyo transportationkiisii iyo hotelka iyo cuntada waliba cashadii iyo quraacdii ku jirto ma sha Allah waa wax package isku xiran oo 5 maalmood ku maqnaanaysid wixii markaas macluumaad u baahan si gaar ah noola soo xiriir kartaa waliba Sheekh Axmed waxaan ku raacinayaa hadda waxa laga yaabaa marka annagu caawa dhaano dad baan Baytul Maqdis u kaxeynayna walaalo badan oo nagu xiran Furqaan Travel inay isdhahan dhowr boqol qof baa la kaxeynaya trip walba oo aan baxayno waa 19 qof 19 qof ka badan macnaha waa sida package oo balad kooban waxaan rabnaa dad kooban oo la soo baro duruusti iyo muxaadaraadki mideeda kale basaska halkaas waxaa loo design gareeyay basaska qaybtooda waxay 19 qof ka badan lama wada marka waxaan rabnaa inaan group walba 19 qof ka xeyno haddana already dad baa qoran marka qofkii inta hartay nasiib u yeesho insha Allah marka dadka la kaxeenayo ama duu passport Swedish wato ama wato Hollandiis passport waa la wadi karaa baasaboorada Yurub oo dhan baasaboorada ma aragtay Yurubiyaanka oo dhan kulli si toos khadka u jiro assalaamu calaykum raxmatullah assalaamu calaykum walaal si toos ah waxa ugu jirta TV-ga caalamiga barnaamijka ma la socotay codkaaga kor u qaad Somaliland ma joogtaa Hargeysa ma joogtaa
waxaan weydiinayaa inankaa ka warramayo dadka muslimiinta ah halkaa degan intay yacnihii xorriyadooda ay haystaan masaajidka hareerihiisa intay tallaabay markaa yuhuudda u jirtaa xaalka masaajidka adigaa soo arkay balfooyi nabadii khayr allah weydiiye dhammaantiiyo magacaaga adoo mahadsan magacay faadumo cabdiraxmaan baa aad baa u mahadsan tahay aad baan ugu faraxsannahay faadumo cabdiraxmaan oo si toos ah inooga daawanayso shaashada tv-ga caalamiga kalson ayadoo joogto somaliland gaar ahaan magaalada hargeysa su-aal xaqiiqatan walaasha waa maastahay walaashay faadumo allaha barakeeyo waa tahay faadumo allaha barakeeyo waxay weydiisay su-aal dareen leh bilxaqiiqa waxayna ku dareensanaysaa muslimiinta inay yihiin kaljasadan waaxid hal jir inay yihiin waxay ka damqanaysaa bal inay ogaato rabtaa walaalaheeda falastiin xaaladooda iyo sida ay masaajidka iyo say yihiin cabdilweli adiga le waay sheekh axmed allah ku barakeeyo walaasheen faadumo oo weliba xilli dambe u tahay waqtiga ay joogto hargeysa oo na soo wacday oo dareemkeeda iyo shucuurteeda rabto inay ogaato su-aashayda ayna weydiisay waa su-aal muhiima horta masjidka waxaa gacanta ku hayo walaalaha muslimiinta ah salaadahana waxaa lagu tukadaa 5 salaadood ayaa lagu tukadaa jimcahana waxaa laisaga imaadaa ma ahan keliya ma aragtay magaalada qudus laakiin waxaa laisaga imaadaa magaalooyinka o dhan ayaa laisaga imaadaa wax hadda aniga dhibaato ah sheekh axmed oo aniga adi waan soo soconay cidna dhibaataysay anagu ma arag dadkiina salaada subax markaan masaajidka tagno sida biyaha lagu qulqulayo aada u maastahay teleefon kalaa soo galay khadka asalaamu calaykum raxmatullah walaal si toos ah ayaa ugu jirtaa kalson t v barnaamijka baro saxaabi mana la socotay maxaa cabdiqaadir xaggee joogtaa waxaan joogaa jarmal see lagu ahaa والله ما شاء الله عادي عاد وفي عين ما شاء الله برنامجك عاد وفي عن ماشي كسعودي واسع لان waxaan ku weydiinaa dadka oo haysto macnaha tribal documentga meesha ma aadi karaan meesha meelo badan baan ka hadalnay macnaha qudus waxaa dhanba xarameynka meelaha booqashada loo aado dhan ما شاء الله ما شاء الله aad u maasan tahay si toos waxaan ugu wareejin doonaa cabdilweli oo travel documentiga ma lagu aadi karaa xarameynka maka iyo madiina iyo qudus haddii uu u baahdo walaalkeen allah barkeeyo munik ka soo hadlayo travel documentiga marka ugu horeyso salaantiisa waa ka qaadnay waxa uu ku aadi karaa horta anigu aan ogahay aan hubaa maka iyo madiina laakiin waa inuu ka apply gareeya viisada wadanka uu joogo oo ah Germany-ga ama in lagu aadi karo ma aragtay qudus uu ku aadi karo arrinkaas waxaan jeclaan lahaa walaalkay inuu weydiiyo travel agenciyada ku yaalo Germany oo u kaxeeya dadka Bayt al-Maqdis isla su'aal baan halka ka weydiinaya Cabdulwaliyo qofka doonayo inuu qudus aado horta fiisaha ma safaaradda intuu tago Israa'iil buu ka qaadanaya mise fiisaha markuu airport tago qaadanaya xaguu fiisi u maraya qaabkeesa lagu tagaa Allah ku barakeeyo Sheekh Axmedow sidaan ognahay ama aan aragnayba qof walba oo rabo inuu tago Bayt al-Maqdis fiisaha meel uu doonanayo ma jirto fiisaha waa on arrival airportka laga qaadanaya marka baasaboorada aad wadatid Europeanka oo dhan qofka xataa asagoo jooga Germany asagoo jooga Holland asagoo jooga Sweden buu noo imaan karaa halkan naga raaci karaa groupkeena aan ku dari karnaa fiisahana kulligan waxaan ka qaadanaynaa airportka waa tahay waxaan taaganahay gabagabadii iyo gunaanadkii intaana ka bixin waxaan rabaa daqiiqadaha ugu dambeeyo waan kugu soo noqon doonaa Cabdulwali inaan Sheekh Xaamud aan hal iyo laba weydiiyo Sheekh Xaamud marka la tago magaalada Makka qofkii ma soo dharkiisa uu iska galiya magaalada muxuu sameeyaa bal xooga halka nooga dhac taasi waxay ku xiran tahay qodba Sheekh Axmedow meesha uu ka degayo haddii uu marka ku bilaabayana dabcan waa inuu marka qasadkiisana uu yahay inuu soo guto umro ama xaj waa inuu marka mawaaqiida shanta loo qoondeeyay mid kamid ah ayuunbuu ku beegan yahay diyaaraddu la mari doontaa kolka intuusan soo gaarin ilaa 10 daqiiqo ka hor miiqaadka waa inuu u diyaar garoobaa inuu markaa ixraamkii sameeyo markaa diyaaradda dabcan ku tambihinaysa kolleyba Furqaan Travel badanaa waxay isticmaashaa waa tahay oo kugu soo noqon doona aad u maasan
faleedii halkaas noo joog. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Assalaamu calaykum, waxaa si toos ah ugu jirtaa Kalson TV barnaamijka Assalaamu waraxmatullahi wabarakaatuh. bara saxaabi. walaal magacaaga iyo meesha naga soo wacays. waan ka soo wacaya maar Cabdi baa la dhahaa. ما شاء الله مهد عبدي oo Addis Ababa si toos ah nooga daawanayo. Mahad Cabdi ka waran barnaamijka bara saxaabi Addis Ababa gaar Soomaa. insha Allah waa daawanaya. ما شاء الله. هي كسي دا سؤال والله شرعي باسبورك إثيوبيان كم رواية كرا في زمن ليريا إن شاء الله تعالى. وسؤال هذا في عن. ما شاء الله سؤال ونكسر هدو عن باسبورك إثيوبيان ككيانك يكن صوماليا عبد الولي وحي باسبور وضعه هذا كوسع عودنا لكن الشيخ هذا الكسر سوى ولا شيخ حمد كوسعه. كلك جزاك الله خير qofkii marka aan dariiq soo maraya inuu xagga ay jidka soo dago waa inuu soo xiraantaa marka miiqaata mid kamid ah oo soo marayo waa hadii se flight-ku uu toos u aadayo qofku Madiina u aadayo marka waxba loogama baahna inuu xiraanto markuu Madiina tago oo uu maalinta uu rabo inuu xagga marka soo aadayo ayuu wuxuu ka soo xiranayaa miiqaadka ahlu Madiina ay ka soo xirtaan iyo dadka soo mara oo Dul Xulayfa halka ayuu marka dharkiisii ihraamka iyo wixii axkaan ahaa isaga oo marka og halkaas uu ka imaanaya marka barakallahu fiik ilaaha ku sharfo si fiican baad nagu qaaba dhigtay Cabdiweli gabagabada mar insha Allah tabaaraka wa taala fursadan uga faa'iideyso baasaboorada loo adeegsan karo in meeshaas lagu aado kan Kenya Ethiopia East Africa maxaad ka ogtahay Sheekh Ahmed Allah ku barkeeyo inta aan de kulli airport ka joogay waxaan la kulmay dad badan صحيح oo meelo badan ka soo kala yimid walaalka hadda ka soo hadla Addis Ababa khayr Allah siiyo waxa indhahaygu ay qabanayeen ama airport-ka baan ku arkay dad badan oo Ethiopian ah oo baasaboorka Ethiopia sito oo ka soo degay meesha oo joogo marka hadii uu la xiriiro travel agency-yada joogo ma aragtay ii sheeg Addis Ababa way u sheegayaan waliba waxay ii sheegeen viisada inay airport ka qaateen waana u jeeday kulligan isku meel ma ka qaadanayn marka macnaheedu waxa waaye maadaama ay ma aragtay dad badan ba hadda waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan meesha horta yaa tago kaliya dad badan ba waxay mudaan dad muslimiinta kaliya inay tagaan meesha laakiin dadka ugu badan oo holiday-ga taga oo meesha oo taariikhaha aan ku arkay meedihii aan tagay dad waxay ahaayeen ma aragtay masiixiyiin oo meel walba ka yimid caalamka sida taariikh weyn ba ku asoo nabi Allah Ciisa meesha ku dhashay absolutely waliba haddeertaan xilligan ma aragtay December Christmas ay dhahan waa labada xilli oo ugu daran waa xilliga Christmas-ka iyo xilliga Easter-ka waxay u aadaan cibaado ahaan marka wadamadaas oo dhan baasaboorada waxay aan on arrival marka waxay ka dhigeen si dad badan ay wadanka u soo booqdaan in ma aragtay viisadii laga qaatay airport-ka ma u jeedin qof yiri visa waxaan ka soo qaatay wadankayga soo baasaboorada oo dhan waxay ka qaadanayaan on arrival ilaa la ii sheegay wadamo gaar ah oo aan ka qaadan karin airport-ka viisooyinka oo ay kamid ahaayeen Soomaaliya Pakistan wadamadaas ka mid ah dadka ugu badan oo u jeedin waxay ahaayeen Indonesia iyo Malaysia kulli airport ka qaadanayeen si wanaagsan ma sha Allah tabarakallah Allah ku barakayo waa soo sheegay Cabdiweli wixii qoseeyo ama baasaboor waxaa ku fiican magaalada joogtid inaad xogta dhabta ah halka aad ka ogaatid ilaahay idin barakeeyo walaalayaal barnaamijkii baro saxaabi oo aan ku soo gabagabeynayno intaas waa inoo kulanti dambe waxaan u mahad celinayaa gacanteeda midiga Cabdiweli oo barnaamijkan nagala qayb qaatay sidoo kale sheekheena Sheekh Xamed iyo sidoo kale kaamirada qurux badan injineerka qiimaha badan ee asagana noo daadihinayay maarta noo kala hagayay injineer Maxamed kulanti wanaagsan oo kale bulshay meel kastoo aad joogtaanba waxaan idiin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikadda duulimaadada ee tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taalla bartamaha Birmingham oo idinkugu qadmeynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyo dad booqanaysa iyo dhulka barakaysan Makka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara dadka doonaya inay xajka iyo umrada tagaan waxay ugu tala galeen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star-ka oo dhammaantoodba 5 star ay yihiin kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugada ama teendhooyinka casriga ee VIP-da walaalaha waxaan ogeysiinayaa iminka iyo wixii ka dambeeya inaan qayb ka nahay oo u taagannahay in aan kala qayb qaadano Furqaan Travel dadka ay hogaaminayso xajka umrada oo hogaaminaysa in aan irshaadino oo wixii diini ah aan ka saacidno ana u diyaarnahay inaan ka saxno akhtaada ay ku dhici karaan annaga oo la safrayna la joogna Furqaan Travel insha Allah
meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad khidmadiinna iyo howlihiinnaba u dirsataan furqaan travelo intii horay uga khidmaysay aad u jeclaysatay inta kalena ay jeclaysan doonaan anaa jeclaysta iyadaa jeclaysta isagaa jeclaysta kulligoodaa jeclaystay adinkuna jeclaada furqaan travel yaan la moogaan hawsha idiin qabatana waa la hubiyey waxaana ay xubin ka tahay hay-adda caalamiga ah ee atol oo ah mid iyadoo hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga sii socod iyo soo socodba hadal badani ahaan ma buuxiye la xidhiira maamulaha sare cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad samaan idinku soo dhoweynaya wixii faahfaahin ah shaashadda ka daawada